tababarkan oo ay iska kaashadeen wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland iyo xafiiska UKAID soconna doona muddo 10 cisho ah ayaa daahfurka tababarkan waxa ka qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda oo u horeeyay wasiirka wasaaraddaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka gudoomiyaha maamul wanaagga safiirka dawladda Ingiriiska u fadhiya Somaliland mas'uuliyiin ka socota safaaradda Somaliland ee Taiwan iyo mas'uuliyiin kale tababarkan ayaa muddada uu socdo lagu baran doonaa ka hortagga khataraha ka yimaada internetka waxaana aqoonta tababarkan oo ah mid heer caalami ah ay anfici doontaa waaxyaha tiknoolajiyadda ee wasaaradaha iyo hay'adaha qaranka ugu horreynna waxaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada tababarka iyo faa'iidada uu qaranka u leeyahay ee dhanka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Aamina Xuseen Maxamuud agaasimaha guud ee wasaaradda tiknoolajiyadda ujeedada maanta aynu halka u fadhinaa waxa weeyaan in aynu daahfuro tababar ballaaran oo la xidhiidha ilaalinta iyo ammaanka xogta nidaamyada iyo shabakadaha xukuumadda ay isticmaasho tababarka kan oo la yiraahdo cyber security waxa ka faa'iideysan doona 35 xubnood oo ka kala socda wasaaradaha dalka iyo hay'adaha madaxa bannaan ee dawladda tababarka kan wuxuu socon doonaa 10 maalmood waxaa tababarka kan iska kaashaday wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo xafiiska horumarinta UKAID wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka Cabdiqaadir Cumar Jaamac iyo gudoomiyaha maamul wanaagga Dayib Aadan Xaaji Cali oo madasha ka hadlay ayaa wasaaradda ku amaanay hawsha ay qaranka u hayso iyo tababarkan oo wax weyn ka tari doona bidqabka internetka iyo la jaanqaadida horumarka tiknoolajiyadda ee adduunka waxa jirta in dawladda Somaliland ay policy tahay in la hirgeliyo oo ay siyaasadda dawladda ku jirto in ICT-ga aad loo horumariyo laguna shaqeeyo dhammaanba xafiisyada dawladda wasaaradaha iyo kuwa madaxa bannaanba waxaana jirtay in hadda department kasta oo wasaaradda laga sameeyay wasaaradaha dawladda department u qaabilsan ICT-ga oo la yiri waa inuu ku shaqeeyaa si ay wasaaraddaas ugu shaqeyso tiknoolajiyada cusub muddada 10 cisho ee imika lagu jiro trainingka in dhammaan shaqaalaha ka socda qaybaha ITC-ga ee wasaaraduhu ay ka faa'iideystaan saddexdaas sano waxaan dareensanay komishanka maamul ahaan waxaan dareensanay wasaaraddu shaqadii ay haysay qaranka wixii ka horeeyay 2017 inay 10 jeer 20 jeer soo laabtay waayo tababarada bixinayso iyo shaqooyinka qaranka hayso oo mandate-kii la fulinayo oo togo horeysa ahayd siyaasadaha la sameeyo amba ICT ha noqoto amba siyaasadii information ka noqoto amba siyaasadii ha noqoto waxaasoo dhan runtii waxa ku tusayeen waa maamulka oo ka dhalanaya mandate guud ee wasaaraddu leedahay Master Sebastian sarkaal ka socday hay'adda UKAID oo wasaaradda ka taageeraysa tababarkan ayaa ku dheeraaday muhiimadda barnaamijkan waxa uu sheegay in dunidu maanta dhaqaalaha ugu badan ku maalgeliso badqabka tiknoolajiyadda iyo internetka maadaama wax badan ku xidhmeen internetka isagoo sheegay in ay 50 dal iyo in ka badan oo qaaradaha dunida ah ay ka caawiyeen dhismaha aqoonta la xidhiidha ka hortagga khataraha internetka safiirka Somaliland ee UK iyo marti sharaf kale ayaa iyaguna sidoo kale amaanay barnaamijkan wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Dr. Cabdiwali Sheekh Cabdullaahi Suufi oo gabagabadii tababarkaas si rasmi ah u furay ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay in ay ka faa'iideystaan barnaamijkan caalamiga ah oo aqoontooda tiknoolajiyadeed wax ka taraya wasiirku waxa uu ka warramay sida ay wasaaradda uga go'an tahay kor u qaadida xirfadaha shaqaalaha dawladda ee ka faa'iideysiga dhanka tiknoolajiyadda waxay sharafa maanta inaan furo tababarkan oo socon doona muddo 10 maalmood ah laydikuna tababari doono ilaalinta xogta ama cyber security training kaliya maaha waxa la idin diyaarin inaad qaataan certification comtia oo ah company international wasaaradda mahayad deentaba ahaatee hanti fara badan bay leedahay laakiin hantiga u qaalsani waxa weeye waa xogta weey iyadoo wasaaraddu taa qiimaheeda og ay waxay la kaashatay xafiiska UK ee maaragtay Somaliland oo ka caawiyay oo fanka bixiyay waxa weeye annaguna waxaan diyaarinay baahiyaha iyo farsamada iyaguna waxay diyaariyeen in ay naga caawiyaan marka
fursad baad leedihiin chance baad hesheen 10 cisha laga faa'iideysto wasaaraddu iyadoo ku dadaalaysa in kor loo qaado ka faa'iideysiga technology waxaan u soconaa in dawladdu ay aad uga faa'iideysato ama ay technology-ga hayso ay kor u qaado